waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo dhismahan quruxda badan oo la isleeyahay dhismahan malaha kuma yaala Soomaaliya ilaahay baa iskale mahadda marka koowaad marka labaad waxaa iskale ciddii dhistay mashruucan fulisay waan leeyahay hay'adaha gaar ahaan SSF iyo cidday wax ka soo qaaday laakiin hal shay baa asala hadalkayga dib baan u dhigan doonaa ma ayna suurto gasheen haddayna jirin amni iyo dowladnimo in la dhiso gurigaan oo kale waxaa sababay in la dhiso waa in ammaan jiro dowladnimana jirto taasaa waxay ku dhiirigelineysaa cid kastoo rabta inay na caawiso inay hesho sabab ama environment ama xaalad ay lagu caawin karayso gurigaan aad arkaysaan meeshaana waxay ahayd dhul dunsan calaqa lagu kariyo rajo aan laga sugan in dhismo noocan oo kalea laga dhiso waxaan u malaynaya intuu dhismuhu socday 3 goor baan dhismahan dib loo dumeeyey oo mar walba standardku sidaan ma ahayn waa guul taariikhi ah waana wax Soomaalida oo faa'iido Jubaland oo Rexmayana waxaan rabaa inaan u diro tacsiir mar kale ninkii dhisay shirkaddii gurigaan dhisaysay ee qandaraaska qaadatay ninkii agaasimaha shirkadda managerka ka ahaa uu dhintay Allah naxariisto isagoo shaqada dhismahan ku dhex jiray Nuur Cali Mare SSFna waxaan uga tacsiirinayaa qaraxii ugu dambeeyey wiilashii ay ku weyday iyaduna ee kaga dhintay Nairobi iyagana waan uga tacsiirinayaa waxaan jeclahay inaan kelmadeyda kaga hadli doono xafladda aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum